بسم الله أما بعد كلمات عن كورونا فيروس وأويرو كسابسن فيروس كلو يقانو كورونا ما أنت خطبة الجمعة أيام كسوقاتي كلمات كان صلاة دي مركا كبعدي ولا عليه مساج كنت كان يقيب كم دبائيمي يقو عدسانية إن كلمات كاس عن دوبو سيبول شدو أي وحويا أقوى فايديسته waxaynu wada ogsoonahay wadanka Chinaha inuu ka dilaacay fayraska loo yaqaan corona bishii koowaad 20keeda 2020 laga soo bilaabo ilaa hadda oo laga joogo 2 weegi dheeraad waxa soo ifbaxayay fayraskaas iyo la tacaalidiisa dawladda Chinahu waxay sheegtay ilaa hadda dadka u dhintay ee la hayo inay yihiin dad kor u dhaafaya 500 oo qof waxaase ay sheegayaan ila kale in dhimashadu inta ka badan tahay laakiin dawladdu ay qarinayso dadka uu ku dhacay ee hadda la nool waxay ku qiyaasayaan in ka badan 24,000 oo qof laakiin se ila kale waxay leeyihiin inta in ka badan ayuu fayrasku asiibay fayraskaas calaamadihiisa waxa kamida ama acraadiisa hadeen wax kamida tilmaano in qofka heer kulka jirkiisu uu aad u kacayo sidoo kale waxa kamida in dhuuntiisa ay waxa weeyaan xanuun zaa'ida keenayso sidoo kale waxa kamida in sadriga ama sanbabada ay waxa weeyaan xanuunsanayaan dabeetana ay dib ku noqonayso inuu neefsado sidoo kale waxa kamida in shuban iyo qofkii caloosha socota ay waxa weeyaan imanayso xanuunkaas sida dhakhaatiirtu ay sheegayaan waxyaabaha lagu kala qaadayo waxa kamida inuu ku gudbayo hawada oo qofkii qabay markuu neefsado ama hindhiso dadkii kale ee ka agdhawaa waxa weeyaan u gudbinayo bal waxay sheegayaan in fayraskaasi hawada uu ku jiri karo in ka badan 5 maalmood fayraskaas waxyaabaha uu ku gudbayo waxa kamida taabashada qofkii qabay hadii uu meel taabto adiguna aad taabato fayraskii sidaas aad ku qaadaysa sida darteed baas Chinese-ku salaanada ama liftiyada la raacayo waxay soo rogeen hadda in qofku markuu taabanayo in uu ku taabto softi uu ku taabto dabeetana softigaas la fogeeyo oo khashinka lagu daro si dadkii aanay u kala qaadin xanuunkaas virus corona ilaa hadda lama hayo wax dawo ah oo si kaafiya oo buuxda lagu daweeyo qodobka kale ee isweydiinta leh xanuunku sidiisaba ciqaab ma noqda waxaan leenahay qofka mu'minka ama muslimka ah xanuunku hadii uu ku dhaco ama bulsho meel degan oo muslimiina uu ku dhaco waxa uu u noqonayaa ibtilaa yaani imtixaan waa lagu imtixaamaya sida ay ugu sabraan ugu dulqaataan ugu adkaystaan ilaahay ugu soo noqdaan iyo wixii lamida ibn al-qayyim wuxuu leeyahay oo uu sheegaya in ka badan 100 faa'iido oo laga helayo xanuunka laga helayo oo qofka muslimka ay uu ka dheefayo gaalada dhinacooda marka laga hadlayo laba loo kala qaadayaa bay culimadu leeyihiin in xanuunkaas gaalka markuu ku dhaco gaalkii uu gaalnimadii ka toobad keeno dulmigii uu ka toobad keeno ilaahay u soo noqdo oo rumeeyo dabeetana xanuunkaasi khayr buuba u noqon oo wuxuu ka helay faa'iido weyn xaaladda labaad gaalkii inuu ku sii adkaysto gaalnimadii iyo dulmigii sii xadgudbo soo laaban waayo xaaladaasna waxay leeyihiin ciqaab iyo cadaab ayuu waxa weeyaan ku noqonaya qodobka kale ee lagala soo baxayo dilaacidda iyo faafidda fayraska corona wuxuu yahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu xarimay dulmiga iyo xadgudubka iyo tacadiga waxa loo yaqaan
wuxuu tilmaamayaa nebigu min xadiidi abi dar in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calى nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu addoommadaydiiyow waxaan idinka xarimay dulmigaan idinka xarimay naftaydana waan ka xarimay ee haysdulmiyina haysku xadgudbina ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay watilka alquraa ahlaknaahum lama dalamuu wajacalnaa limahlikihim mawcida tuulooyin dad deganaayeen ayuu ilaahay ka warramaya wuxuu leeyahay markay dulmi sameeyeen ayaanu waxa weeyaan halaagnay oo waxa weeyaan aanu baabiinay oo aanu u samaynay waqti yacni la halaago wuxuu tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalima ina akhdahu aliimun shadiid nabigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb xadiidka xadiidulqudsiga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qofkii la collaytama dulmiya ku xadgudba weli anigu aan leeyahay qofkaa waxaan ogeysiiyey dagaal baan ogeysiiyey dagaal baan kula jiraa qof ilaahay dagaal kula jirana waxa weeyaan arrinkiisu ma sahlana wuxuu tilmaamayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala alaysa allahu bikaafin cabdah ilaahay miyaanu ahayn mid ku filan addoonkiisa u hiilin kara u gargaaraya miyaanu ilaahay ahayn waxaanu leenahay bala ilaahay subxaanahu wa tacaala waayah dulmiguna waa muxaram oo waa mid aan bannaanayn ama ha ahaado mid waxa weeyaan gaalo la dulminayo ama ha noqdo mid muslimiintu dhexdooda ay isdulminayaan ama ha noqdo qofku mid naftiisa uu dulminayo sidaa darteed markii waxa weeyaan ay jayniisku dulmiyeen dadkii muslimiinta ahaayee ku dhex noolaayee yaraa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalmarin waxa weeyaan uga dhigay arrinka noocaas qodobka kale waxaanu leenahay duruusta laga faa'iidaya waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano aljazaau min jinsi alcamal wa kamaa tadiinu tudaan wixii aad samayso wax la mida baa lagugu abaalmarinaya sidaad ula dhaqanto baa adigana lagula dhaqmaya waxaynu ka warhaynaa in jayniisku ay 5 milyan oo muslimiinta ku dhex nool ka mida in ay waxa weeyaan go'doomiyeen iyagana ilaahay wuxuu ku abaalmariyey in maanta caalamkii oo dhani uu go'doomiyey waxaynu ognahay jayniisku in ay sameeyeen jeelal aad u waaweyn oo tuulooyin leeg si dadka muslimiinta ay ugu xareeyaan oo ay ugu cadaabaan diintoodana ay uga saaraan waxayna ku magacaabeen dhaqan celin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abaalmariyey inuu iyagana guryahoodii ku xabisay oo maanta jaynata ka taagani waxay tahay in guryahooda ay ku xabisan yihiin oo 3dii cisho oo ka mida ama 2dii cisho markay soo wareegto qof ka mida caa'iladu ama qoysku intuu baxo uu soo adeegayo waxyaabihii daruuriyaadka ah uu soo iibinayo halka ay ku xabisan yihiin oo guryahoodii aanay ka soo bixi karayn wadooyinkii ay maran yihiin meelihii suuqaqa ah ay maran yihiin maxallaadkii iyo goobihii ganacsigu ay xidhan yihiin waxaa ka mid ah in jayniisku ay waxa weeyaan u diideen dadka muslimiinta inay si xora u safraan maanta tajayna haysata waxay tahay in aanay safri karaynin oo caalamkii kale aanay u safri karaynin wadamada qaarkood waxayba diideen in jayniisku ay wadamadooda soo galaan diyaaradihii jayna ka imanayay wadankooda imanayay bay laaleen qaar ka midina way yareeyeen socdaaladii jayna uga imanayay markay soo degaan dadka jayniiska ahi waa la buufinaya waana la iska ilaalinaya waxaa ka mid ah jayniisku in ay muslimiintii u diideen inay ciidahoodii ciidaan shaciiradaasna ay muujiyaan ilaahay wuxuu ku abaalmariyey in iyaguna ay awoodi waayeen inay ciidoodii maalmo ka hor ahayd ay ciidaan
baqdin ay ka baqayaan haddii laysu yimaado si loo ciido in fayraskaasi uu dhexdooda ku faafo. sidaa darteed baa waxay yidhaaheen cid waliba guryahooda waxa weeyaan ha ku ciidaan. waxaa ka mid ah Chinesku inay u diideen in waxa weeyaan muslimaadkii dumarkii muslimiinta ahaa ay xijaabtaan oo jirkooda xijaab ku asturaan. ilaahay wuxuu ku abaalmariyay in xijaab qasaba ay xijaabtaan oo waad arkaysaan iyagoo overkoodho waaweyn waxa weeyaan sita oo jirkooda meel muuqata aanay jirin. waxa weeyaan kamaamaad bahalihii sanka iyo afka lagu xidhi jiray ayaa waxa weeyaan ay xidhan yihiin. bal maalin dhaweyto jaziira waxay soo dhigaysay caruur yaryar oo Chinese ah inay caagadahan biyaha laga cabo ay waxa weeyaan gooyeen madaxana gashteen iyagoo ka baqaya xanuunkaasi in waxa weeyaan uu soo gaaro oo soo tallaabo. waxaa ka mid ah China waxay sameeyeen muslimiintii inay u diideen masaajidii ka dumiyeen inay muslimiintii masaajidoodii ku tukadaan oo ku raaxaystaan bay u diideen. ilaahay wuxuu ku abaalmariyay iyagana goobihii raaxada ay u yaqaaneen ee ay waxa weeyaan waxay toolay khamriga iyo ku cabi jireen waxyaabaha muharramka ah ee ay u dalxiistigi jireen in dhammaan ay xidhan yihiin oo waxa weeyaan ay ka baqayaan haddii meelaha la isugu yimaado xanuunkaasi inuu faafo. China wuxuu yidhi maalmo ka hor markii uu muslimiinta cadaabayay ee dowladaha qaarkood ay ka hadleen ama ashkhaas caani ay arrinkaa ka hadleen ayaa wuxuu yidhi ma doonayno mana ogolaanayno in cidi ay soo guda gasho arrimaha iyaga gaarka ah. ilaahay wuxuu qadaray inay maanta qaylinayaan oo qayladhaan ay ku jiraan caalamkoo dhanna u yeedhanayaan si caalamku xanuunkan wax uu uga qabto oo waxa weeyaan loo soo gaadho. bal China wuxuu la gaadhay heerku ama xaalku wuxuu la gaadhay in waxa weeyaan ay Ingiriiska qayladhaan u direen oo ay leeyihiin kamaamaad nala soo gaadha bahalaan yaryar ee sanka iyo afka lagu xidho nala soo gaadha si xanuunkaas bal aan ugu kaantaroolno ugu xakamayno. waa China oo aynu ogeyn inuu wax walba samayn jiray baa waxa weeyaan maanta wuxuu codsanayaa kamaamaad in nala soo gaadho. waxaa ka mid ah waxyaabaha la yaab kale ee China maanta haysta xanuunkaasi markii uu dilaacay ee la shaaciyay ee la faafiyay ee bulshada lala wadaagay waxaa markiiba bilaabmay dhaqaalihii Chinuhu inuu hoos u dhaco. Chinaha oo ku tirsanaa wadamada ugu dhaqaalaha sareeya bal waxaan filayaa Mareykanka oo kaliya ka horeeya waa wadanka labaad haddaan khaldanayn wuxuu khasaaray maalmaha gudahood tiro aad u weyn oo dhaqaale ah trillion barkii ayuu waxa weeyaan khasaaray oo uu waxa weeyaan waayay bay tilmaamayaan qoliyahan dhaqaalaha ka hadla. waxaa ku wiirsanaya Mareykan oo ay tartami jireen oo wuxuu leeyahay xanuunkaasi wuxuu dan u yahay dhaqaalaha Mareykanka ayuu dan u yahay sidaas ayuu tilmaamaya. waxaa kaloo la tilmaamay muslimiintii Chinaha lagu dhibayay haddii wadamada muslimiintu ay go'doomin lahaayeen Chinaha oo waxa weeyaan ay ka go'doomin lahaayeen inay waxba ka iibsan waayaan ay ku go'doomin lahaayeen inaanay gaarsiiyeen dhibta fayraskani gaarsiiyey ayay muxalliliinta iyo dadka ka hadla dhaqaaluhu ay tilmaamayaan. China muslimiintii tirada yarayd ee ku dhex noolayd bay cadaabeen markaasaa caalamkii oo dhan fiirsanayay oo xukaamtii carabta iyo muslimiintu ay waxa weeyaan wax ka hadlay ay iska yar yihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa laakiin soo gaadhay oo u hiiliyey. ilaahay wuxuu tilmaamay fakullan akhadnaa bidanbihi faminhum man arsalnaa calayhi xaasiban ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أمديه ورو إلهي كهدلي وحليه مد والبوحان كقبني وأن كأبال مرني ذنوب تودي وحكم النقضي كاس لهلاقي
qaar aanu ku halaagnay dabaylo aanu ku soo kicinay oo lagu halaagay qaar ayaa ka mid ahaa aanu qaylo ku halaagnay lagu qayliyey dabeetana halaagsamay waxaa ka mid ahaa qaar aanu dhulka la goynay waxaa ka mid ahaa qaar aanu biyo ku qarqinay ama badda waxa weeyaan aanu ku maashaynay ilaahay wuxuu ka dambaysiiyey ilaahay ma dulminaynin walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun hase ahaatee iyaga ayaa nafahooda dulmiyey dunuubtay galeen baana ilaahay ku abaalmariyey waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ee muslimiin ahaan laynooga baahan yahay in aynu ka fogaanno faaxishada waxa loo yaqaano ama zinada xadiidka cabdillaahi bni cumar ee culimmada qaar ka mida ay leeyihiin waa sugan yahay wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi lam tadhar alfaaxishatu fii qowmin xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim alطaacuunu waalawjaac alatii lam takun madat fii aslaafihim ma jirto qolo inuu dhexdooda ku faafo zino ay ku faafto ilaa ay muujistaan oo dariiqada ula soo baxaan ilaa haddii arrinkaasi uu dhaco ilaahay wuxuu ku sallidayaa daacuunno iyo xanuunno aanay aqoonin oo dadkii ka horreeyey aabbayaashood iyo awowayaashood aanay waxa weeyaan soo gaadhin oo aqoonin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sallidaya waxyaabaha laga faa'iidayo dilaacidda coronavirus iyo faafidiisa waxaa ka mid a sharcigu wuxuu tilmaamay in waxyaabaha la cuno ee la cabo in badan oo ka mida ama waasay u badan yihiine ay bannaan yihiin in yaroo ka midana waxaa la tilmaamay inay xaaraan yihiin sababahay u xaaraantinimoodeen haba kala duwanaadaan jayne waxaad og tihiin waxyaabaha uu quuto inay ka mid yihiin xasharaadka iyo waxyaabaha naftu ay dhibsato iyo waxyaabaha waxa weeyaan dadka dhiba ee waxa weeyaan xayawaanada ka mida ama nafta bini aadanka ee saliimada ahi aanay ku siinayn in la quuto sida waxa weeyaan jiirka iyo bisadaha iyo wixii la mid ah xanuunkan hadda faafay dhakhaatiirta qaarkood waxay tilmaamayaan in uu ka soo gudbay oo uga soo gudbay fiidmeerta shimbirta fiidmeerta la yidhaaho xaggeeda inuu uga yimi qaar ka midna xayawaano kale ayay tilmaamayaan taasna waxaad dareemaysaa xikmadda ku jirta in waxa weeyaan sharcigu waxyaabaha noocaasa uu xaaraantinimeeyey oo la diiday oo waxa weeyaan xikmad weyni ay ka dambayso diididdaa la diiday ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamay yas'aluunaka maada uxilla lahum waxay ku weydiinayaan maxaa loo banneeyey oo u xalaala qul uxilla lakum alطayibaat ilaahay wuxuu leeyahay waxaad ku tidhaahaa waxaa laydiin xalaaleeyey waxyaabaha طayibaadka ee wan wanaagsan bal ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabuhu la soo diray waxaa ka mid ah sida kitaabkiisa uu ku sheegay wayuxillu lahum alطayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'ith in nebigu dadka uu soo gaadhsiiyo wixii xalaal ahee ayib ah wixii xaaraan ahee khabiiana waxa weeyaan uu uga xarimo oo ugu diido ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadih wاطayibaati min alrisq yaa waxa weeyaan dadka ka xarimi kara oo u diidi kara ziinada ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo saaray adduunka u dhigay iyo طayibaadka risiqa kiisa wanaagsan yani cidina uma diidi karto kama xarimi karto sidaa darteed ayaa waxaa la xaaraantinimeeyey bakhtigii in la cuno khinziirkii iyo doofaarkii in la cuno dhiiggii waxa weeyaan in la cabo waxyaabo badan baa la xaaraantinimeeyey si bini aadanku caafimaadkiisa uu ilaashado u fayoobaado xanuunno badanna uu uga badbaado waxyaabaha loo baahan yahay qofka muslimkaa inuu ku baraarugsanaado waxaa ka mid ah in uu ku dadaalo ducadii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam min xadiidi anas nebigu uu ku ducaysan jiray isagoo odhan jiray allaahumma inii acuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaami wa sayi'i اlasqaab ilaahayow waxaan kaa magan gelayaa waxa weeyaan baraska
iyo waalida iyo juudaanka iyo xanuunada xunxun oo dhan. koronana wuxuu ka mid yahay xanuunada xunxun buu ka mid yahay. waxyaabaha lagaga badbaadayo ayaana ducadaasi ay ka mid tahay. waayo waxaynu ognahay waxa weeyaan haddaynu Soomaalida nahay wadcigeenu inuu iska hooseeyo, caafimaadkeenu hooseeyo, xanuunkaas waxa weeyaan aynaan muwaajahayn karayn. haddana dalal fara badan buu gaadhay oo sodomeeye waxa weeyaan gaadhaya ayaa laga soo sheegaya xanuunkaasi in waxa weeyaan uu gaadhay, walow uu u badan yahay China, haddana waa gudbaya. sidaa darteed ducadaas qofku hadduu ku dadaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunkaas iyo xanuunno fara badan oo kale oo uu dhibsanayo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga badbaadinaya. waxyaabaha laga faa'iidaysanayo dilaacidda iyo faafidda coronavirus waxaa ka mid ah in dadka muslimiinta ah si kasta oo noloshan adduunyo ay u hooseeyaan oo dhaqaalahoodu u hooseeyo oo awooddoodu u hooseyso in aanay quusanin, rajo dhigin, isdulaynin, gaalada isu jilcinin, ay aaminaan in ay gacanta sarraysa ay yeelanayaan, cirib dambeedkana ay iyagu leeyihiin, adduunkana ay leeyihiin sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay: tilka min anbaa'i alghaybi nuuxiiha ilayka maa kunta taclamuha anta walaa qawmuka fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin. ilaahay wuxuu ka soo warramay nebi nuux qisadiisii, sidii qoomkiisa ugu madax adeegeen, sidii loo halaagay qoomkiisa, guushiina nebi nuux iyo ciddii raacday ay u yeelatay. markaasaa wuxuu leeyahay warkaas la soo sheegay waa war hayba oo cidi aanay ogayn, adiguna aanad ogayn, waxa weeyaan qoomkaaguna aanay ogayn oo ka warqabin. sabir, adkayso, caaqibada waxa iska leh iyo cirib dambeedka dadka mu'miniinta baa iska leh. aakhiro markii la tagana ilaahay wuxuu leeyahay: tilka ad-daaru al-aakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi al-ardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin. aakhirana cirib dambeedka dadka muttaqiinta ah, mu'miniinta ah ayaa waxa weeyaan iska leh. sidaa darteed gaaladu si kastay u sarreeyaan, dhaqaalahoodu u sarreeyo, awooddoodu u sarrayso, dabaabaad, nukliyeer, wixii la mida ay leeyihiin, waxaa loo baahan yahay inaanu muslimku isdhiibin, niyad jabin. waayo tusaale yar haddaynu bixinno, coronavirus oo ishu aanay qabanaynin ayaa ka qaylisiiyey oo waxa weeyaan ay la liitaan oo ay la tacaali kari la'yihiin maanta, iyadoo oo awooddooda maadi ama adduunyo ay aad u sarrayso. oo China markuu fayraskaasi dilaacay 6 cisho gudahood buu yidhi waxaan ku dhisayaa dhakhtar aad u weyn oo dhowr dabaqa. muddadii in ka kooban baabu ku dhameeyey, haddana ilaa hadda uma helin xal fayraskaasi iyo faafidiisa. taasina waxay ku tusinaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiintu inay ku kalsoonaadaan: walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum al-aclawna in kuntum mu'miniin.